بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبada aan jeclahay oo ku soo dhawaada muuqaalka xiga ee Hanaan English Officials waa saaxiibkiin aadkii idin jecel Maxamed Umar Ali Maxamed Arkey oo aad aalabo kaga barateen in idin soo gudbiyo muuqaal xiiso badan kuwa oo xiriir la leh luqadda anfaca badan ee Englishka maantana waxaynu dul istaagi doonaa qaybtiisii phrasal verbs-ka qaybtiisii afraad ayaynu diiradda saari doonaa ka bogasho wacan fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe dheh gambalelkan furo mahadsanid. Number 1 draw in waxaa la yidhaahdaa soo jiidasho. She has drawn in me iyadu way isoo jiidatay markaa dheesh. She has drawn in me iyadu way isoo jiidatay. Number 2 dry up waxaa la yidhaahdaa hadal joojin. Dry up hadal joojin. He dried up wuu joojiyay his hadalkiisa when he had seen me markii uu aniga arkay. Aniga markuu arkay wuu joojiyay hadalka ayaa la yiri. He dried up wuu joojiyay hadalka when he had seen me markuu aniga arkay. Number 3 draw on waxaa la yidhaahdaa kusoo dhawaansho. Anab draw on us anab way nagu soo dhawaatay anab hey draw on us way nagu soo dhawaatay. Number 4 do in waxaa la yidhaahdaa dilitaan. Ali was done in Ali waa la dilay. Ali was done in Ali waa la dilay. The last number 5 deal with waxaa la yidhaahdaa ka guuleyshiso. Deal with ka guuleysi baa la yidhaahdaa. I dealt with anigu waan ka guuleystay my education waxbarashadeeda waan ka guul gaaray markuu yidhaahdaa. aadna ka hesheen insha Allah haddii aad ka hesho fadlan cashirku like saasiir u soo badina muuqaalo ku saabsan cashiradan oo kale aad ku xiisaha badan sidoo kalena subscribe share u dheh asxaabtaada si iyaguna ay ugu sii faa'iideystaan waa anigoo ah saaxiibkiin Maxamed Umar Ali Maxamed Arkey inta inoo muuqaalka xiga ka kulmin doona waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo waxaan ku rajayn doonaa guul weligaaga waxaan ku leeyahay guuleyso meel walba aad ku sugan tahay mahadsanid.